hal mar ila daawo muuqaalka quraanka dad baa mucallimiin oo quraanka dadka bara macallimkaaga wax ku baro ka qaado wixii dheeriya oo xugana oo tashana ku darsay hadiidin macallinkayga ima barin mujarrada hadad meel soo istaagto macallinkaagu ma ahayn macsuum ma ahayn wax dhan kuma dhameystirnayn wax loo baahan yahay ku baray kuma hadi u ducay wixii dheeriyana qaado hadaan mawduuca u soo gudbo waxaa jirta laba waj oo dadku aysan badanaa hadday ka qaataan saan sheegayna ay u qaataan cilmina aysan u lahayn qalad ka iman karo labadaa waj waxay tahay xuruuftan sida culimadu ay sheegayeen walaw a'jabaka kasratul khabiisi ka kasratul khabiisi oo kaleeto iyo xuruufta lamidoo la isku soo qabanayo ruuxa quraanka toosinaya hadduu dabeecad u leeyahay inuu quraanka hoos ka akhriyo markii loo baahdo jahri ama qofka soo qabanaya ama hoorinayana oo la jahro ka kasratul khabiisi waa dikariya tusaale ahaan wallahi yastawi al-khabiith wa at-tayyib kasratul khabiith la jahray quraankana waa akhrinayay mamnuuc maahan laakiin anoo aamusnaayon quraanka qiraa'ada wadin ruux aan u toosinaya amaan ka soo qabanay haddaan labada kaaf isku qabto waa kuma banaana quraanka dhayis kuma banaana wajka labaad marka waa la tacliim quraanka waad aragteen ardayda la baraa alif wax mala looga bilaabaa ma quraan isku xiran markaas xuruufa la isku xiraa hadii la yigaadinaa ma isku xiran yihiin